waxaanu halkan la fadhiyo in maxbuuso oo sidaa u ogtihiin abdalkiaan ninka la yidhaahdo cabdimaalig muuse coldoon waa samafale maxaa yadbadayn kaalmee kuwan weliba aan filayiin oo ka yahay guddoomiye cabdi tahliil warsame mee xaguu ku dambeeyey halkan uu jiifaa gadaashayda xaggayga dambe madaxa quraha ayuu dhaqaajinayaa waa muqdisho taariikhdu maanta waa 18 bisha 10aad ee 2016 halkan ayuu ku xidhan yahay geedkan jirridiisa ciid buu ku cunayaa lug baa go'an 20 sannadood ayuu ahaa xanuunka dhimirka waa cabdilaahi aadan dhagasoog maxamed iyo magaalada burco silsilad lagu faysal dabcan muddo dheer baad xidhneed 10 sanad xidhneed saanu ka warqabno waxaad nooga warantaa maanta waa lagu soo daayay dareenkaagu waa sidee madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar ayaa ka hadlay xaaladda wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo in muddo ku xidhnaa Somaliland wuxuuna sheegay inuu madaxweyne Biixi kala hadli doono sidii xorriyadiisa loogu soo celin lahaa xukuumadda deegaanku waxay isku dayaysaa mar kale inay kala hadasho madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadda uu hogaaminayo ee Somaliland samafale Cabdimaalig Muuse sidii xorriyadiisa uu heli lahaa Cabdimaalig Sheekh Muuse waa astaan Soomaali ka dhaxaysa ayuu yiri madaxweyne Mustafa Cagjar Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa lagu xasuustaa sidoo uu garab istaagay dadka Soomaali galbeed xilliga ay ku jireen halgankii looga soo horjeestay maamulkii Cabdi Iiley ee gumaadka iyo xariga ku hayay dadka Soomaaliyeed waxaana madaxweyne Mustafa Cagjar uu casuumad u fidiyay markii uu xilka qabtay wariye Coldoon oo magaalada Jigjiga ku booqday waxaana Coldoon la xiray markii uu dib ugu soo noqday magaalada Burco bishii aynu soo dhaafnay Coldoon oo xiran wiil ugu dhashay magaalada Burco wali waqti uu saamixin inuu la kulmo wiilkiisa dunida ku cusub iyo qoyskiisa waxa sidoo kale Coldoon oo hadda xabsiga ku xiran uu caawiyaa dadka maxaabiista ah isagoo bara Quraanka Carabiga iyo xadiista maaha markii ugu horeysay ee suxufigan dhinaca samafalka caanka ku ah la xidho ama la xukumo waxay ahayd bartamihii bishii February markii lagu xiray Hargeysa wax yar uun kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya asayeeshee hay'adaha xuquuqda insaanka Somaliland iyo kuwa caalamka ayaa cambaareeyay xariga suxufigan kuwaas oo ku tilmaamay xarigiisa xadgudubyo ka dhan ah xorriyatul qowlka iyo madax bannaanida suxufiyiinta sidoo kale qaar ka mid ah suxufiyiinta madaxa bannaan ee Somaliland ayaa cambaareeyay xariga lagula kacay wariyaha oo ay sheegeen saaka waxaan wadanaa madaxweyne ninkan loo cafiyo saaka ma taagna inaanu nidhaahno xaq darru ku xidhayay xaq buu ku xidhayay midna saaka waxaanu leenahay madaxweyne sanad cusub baa la gelayaa sanadkaa cusub maxaabiista la saamaxayo hana loo raaciyo Cabdimaalig Muuse Coldoon Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa ahaa mid ka shaqeeya samafalka ummadda Soomaaliyeed kuwa taagta daran ama danyarta ah haddaba waxaa xusuus mudan kuwa uu ka soo daayay xabsiyada Burco ku yaala kuwaas oo ku xidhnaa 15 sano iyo in ka badan loona haystay dil faysal dabcan muddo dheer baad xidhneed 10 sanad xidhneed saanu ka warqabno waxaad nooga warantaa maanta waa lagu soo daayay dareenkaagu waa sidee niyadaada hadday dhisantay waan gartay markii hore saad hayd markii hore madax wali meesha lagu waashay meesha lama taagan xarig ma fiican xarig ma fiican imsaad ku jirtay yaa 16 sano ayaad ku jirtay meesha ilaahay sabab kala hada marka halkaad imika silaada tag saacadan xagga doonaysan tag sidoo kale iyaguna dadweynaha reer Burco ayaa aad uga soo horjeestay xariga uu ku xiran yahay Cabdimaalig Muuse Coldoon madaxweynaha wasiirka madaxtooyada wasiirka warfaafinta iyo ciddii kale ay qusaysaba waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa in la sii daayo Cabdimaalig Muuse Coldoon arrintayadaasi ma aha maxkamad baa hawshaa shuqul ku leh dembi buu leeyahay iyo dembi ma laha midna ma lihin dembi buu leeyahay iyo dembi ma laha annagu midna ma odhan karro maxkamadda taa shuqul ku leh oo mas-uulka ah laakiin waxaanu xogagaal u nahay
ayaanu xukuumadda soo gaadhsiinaynaa xukuumadda waxaanu gaadhsiinaynaa wuxuu ahaa cabdimaalig nin samafala ah waxaa isxiga gurigayga iyo gurigiisa waxaanu ku tagaa habeenkii gurigayga hortiisa tiro badan oo dada oo maqta ah oo qubanaha oo agoona oo curyaamaa oo indhoolaa oo naafaa oo soo caydhoobay oo meel walba ka yimi oo hor fadhiya gurigayga iyo gurigiisa hortiisa waxay eegayaan iyagu in la xidhayba ma oge waxay doonayaan isaga waxay leeyihiin naf baan hayse cabdimaalig waxaa naga duuba wuxuu ninkaasi dhaqan u leeyahay dadka naafada ah dadka indhoolayaasha ah dadka gabooba dadka caydha ah dadka baahan dadka masaakiinta inuu u tabaruco oo warbaahinta adduunyada gaadhsiiyo waa hay-ad ilaahay sakhiray oo aad u arrintayadaasi waa codsi amar maaha dembi ma qabo ma lihil waxaanu leenahay dadkiibaa aada ugu baahan masaakiinta ahaa xukuumadduna in badan buu ka xil furtaay oo xukuumadda ku soo socday aan ha loo soo daya dadkii